أبو صاحب يال من كابل إلى داودا. شغل غير شمال بالله يا أركيب بالشركة فوقية مرة ودنا كيف فوقية هيجي ما حد تقول الله يسارعنا أو فريم بس سيدي أو فريم بابور تفولي ورو فريم كلا أقول الله يسارع دت كيدون يسارع إنك كوكر باشتان عد ترتي أو شقينا مور بوش وحنا واسي أصلي إنه كلنا دري إن برايك درتي إنه سبسي سوف فرو بورتا مور بكايسان آخرين في سهر تاجي صاحب يال إلى داوتي مرجينيا. هرتا كان معها قبنا سايق برتين وحوي باني يق برتين وقبنا إيو وركا سايق برتين. وسكني وحوي فكر كديبة شو معناها فكر كيان كديبنيا. إن محو ودني كو أولانيا محو سكول مية كو أولانيا. مسحبا كل مية إنه كو أولانيو إن أوفرين بحالكا قلي مسحبا إنه ودني كو أولانيو إذا كان قرن كموسى تبي يودن كمية يحيابها. waxaan doonayaa balse qof kasta inaan mas-uuliyaddiisa iyo wuxuu xaq u leeyahay inaan taabsiiyo macnaha waa wixii dhakadayda yar ka soo baxa ee aan isleeyahay xaq bay kuwaas u kala leeyihiin waayahay muusaan ku horeynayaa horta muuse biixi cabdi horta halka waa ka salaamaya ilaahay cimriga ha u dheereeyo madaxweynaha halla waa siro xagga muuqaalka xaggeeda dambe idinka sheegaya horta xisbiga kulmiye musabix maartay hadda maartay ishagu de maartay waa ka madaxweynaha oo wadankii haystay xisbiga kulmiye kuma online karaan oo foreen baa meel galay iyo garxajis baa waxaa sameeyey iyo xisbiga wadani baa waxaa sameeyey iyo maartay habar jeclaa waxaa sameysay iyo samarooba waxaa sameysay iyo dhulbahanta waxaa sameeyey iyo faysal cali waraabe waxaa sameeyey kuma online karaan 2017 waddanka waxaa ku tartamay 3 nin waxaa la kala yiraahdaa Cabdiraxmaan Ciro Muuse Biixi iyo Faysal Cali Waraabe waxay kala wateen 3 xisbi xisbiga Wicid xisbiga Kulmiye iyo xisbiga Wadani aniga waxaan ahaa dadkii u codeeyay xisbiga Wadani weliga ninkeen weyn baahan xisbiga Wadani warkaas ma kurba lagu qaatay waa si kaas ka dooro deetana ana xisbiga wadani baan codeeyay xisbiga wadani xisbi dhacay baan waa dadku waa dhageystay deetana idaacadda talo ma soo baxay talo waxa weeye waa dhageysanay maartay dhigta ayaa waxa weeye ku hayay waxa weeye wax kastoo laga sii deeliyay 3 xisbi casar baa la sii daayay waan garanayaa dadkii waa ka dhex baxay meel yaraa fadhiistay kasoo baxa dhigeysanay balaa ninkii u codeeyay soo baxay inuu dhacay wadanka waxa ku guuleystay mujaahid Muuse Biixi Cabdi xisbiga kulmiye aniga taasaan maqlay maadaama ay sidaa tahay waxa weeye xisbiga wadani waxa uu noqday shacabku isku bedelay shacabku isku bedelay markuu shacab isku bedelay cidna shacab isku bedelay wadanina wuxuu isku bedelay madaxweyne qaranka kulmiye wuxuu isku bedelay aan ka wada madaxweyne qaranka oo Muuse Biixi Cabdi ka sharaxnaa oo maartay sida madaxweyne ku noqday wadanka inta lagala wareegayo wixii u toosa iyo wixii ka qalloocdaba isaga u dhaartay haddii cadow soo weeraro isaga lagu suntaya sida Cabdiraxmaan Ciro loogu sunti lahaa hadduu guulo gaadho oo wadanka uu ixtiraaf gaarsiiyo dabcan dad hamiga weyn oo carreyn waxa ahayn inuu maartay wadan la aqoonsan noqono iyo haddii ay tahay caafimaad wuxuu ka qabtay iyo haddii ay tahay dhul wixii uu dhisay iyo haddii ay adiga wixii uu soo kordhiyay ee guul ah isaga ku tilmaanaa wixii guul darro ahna isaga ku tilmaaman xisbiga wadani
iyo xisbiga u cid haba yaraatay waxay ku tilmaamayeen oo ay cid waxaad weydiinaysaa ma jirto dadkii u codeeyeyna waa kuwii dhacay codkoodii waa kii la dhacay waxa guulaystay ninkii kulmiye u codeeyey ayaa waddanka ayaa guulaystay nin aana dooran fiiri ninka kulmiye u codeeyeyba tusaale ahaan haddii ka soo qaato nin aana dooran oonad u codayn waddankiina aan madaxweyne ka noqon sideed dhaliil u saari kartaa maa dooran waddankana madaxweyne ugama dhigin kamuu noqon oo maaragtay cod kale kuma soo bixin sidee baad qaranka wax uga weydiin kartaa yani waxaan u arkaa qof halowsan qof ay yidhaa xisbiga waddani baa wax sameeyey ama xisbiga waddani baa waxaa sameeyey qof halowsan baan u arkaa taa aan halkaa kaga imaado ku ololaynta xagga ololaha horta xisbiga waddani waxa uu ka ololeynayaa oo keliyata wixii uu dadka u qabanayo waa ka reebantay ama waa ceeb shakhsi ahaan saan u arko oo khalad baan u arkaa in lagu ololeeyo wax khaldamay sababtoo ah wax faa'iidaa ma leh waxna uma soo kordhinayso halka shay wuxuu soo kordhinayaa waxa weeye dadka waxa uu tuso oo yidhaa waxa iyo waxaasaan qabanaya sida uu u iibiyo maaragtay siyaasaddiisa u iibgeeyo ayuu waddanka ku hogaaminaya wixidna sidoo kale xisbiga kulmiye ay soo hadhay xisbiga kulmiye laba arrimood ku ololeynaya wixii uu qabtay iyo wuxuu qaban doono labadaa wixii ka baxsan dhaliil cidi kuma ololeyso nin caydiisa cabdiraxmaan cire caydiisa adeero iyo xisbiga waddani caydiisa waxa weeye adeer cid ka ololey karta iyo cid maaragtay kaa dhegaysanaysa iyo cid aad maaragtay ka iibin karaysaa midna ma jirto xisbiga waddanina cid ka dhegaysanaysa cayda muuse bixi iyo maaragtay daldololada iyagoo cadowgii qaranka soo weeraray waxaasa sidaas ahaa iyo waxba noocaas ahaa waxa weeye cidna ka dhegaysan mayso mid baa idiin sheegaya haddaba xagga dambe idinka raacinaya midkaan xagga dambe idinka raacinaya waxa weeye muuse bixi waddanka kama sharaxna hadalkaasi uma malaynayo niyad goor uu dadka u dhacayo garan maaye anigu waxaan u arkaaba ninka aaminsan muuse bixi baa soo sharaxayo ciro iyo la tartamaya faysal cali waraabe inuu doctor gaboose u baahan yahay dhakhtarka gaboose inuu tago maskaxa la soo baadho ma muuse bixi hadduu yaabayni oo meesha yaa doorashada soo hore eriya markii hore ee dee aanay waxba maaragtay waddanku u deganaa fikirkiisu si kalu ahaa laakiin hadda ilaahow yaa meeshan yaa kaa dhex saara busleeyni ood beerahaagii meelaha xarshin iyo meelaha kale aad ku lahayd guryahaaga iska qabatide yaa meeshan waa xeraboontan yaa kaa dhex saara busleeyni markaa muuse bixi idiin sharaxan iyo muuse bixi waddan u soo socdaa midna ma jirto muuse bixi shar iyo khayr wixii uu qabtay wuu la tegayaa ma garatay ilaahayna jannada ha geeyo waxa weeye madaxweynaha waxa weeye sideedaba soomaalidu waxa weeye waa dad iska maaragtay nooc kale ah waa dad maaragtay fikir xumada hal abuur la'aantu hal abuuri maaragtay wax cusub soo kordhin la'aantu ay halkaa dhigtay qofkii ku ololeeya xisbiga waddani baa xisbiga kulmiya waxa ahaa iyo kulmiya waxa qabtay kulmiya halkaas soo carra iyo micnaheedu waxa weeye waa inaanu dadkan waxba u hayn qofka yidhaahdo ciidanka qaranka muuse bixi baa soo jebiyey dabcan siyaasad xumadeena oo dhan siyaasad xumaa soo jebisay taas dee xagga la garay siyaasadda siyaasad marka laga hadlayo siyaasaddii waddanka lagu maamulayey kulmiya ku maamulayey haddii aad dhaliilayso waa halkeeda laakiin madaxweynaha muuse bixi intii uu meesha ku dagaalami karaya waa ku dagaalamay intii uu difaaci karayna waa difaacay cidna kaa dhegaysan mayso maaragtay wax yar oo maaragtay aan maaragtay baysteen mudnayn wax kastaana maaragtay way iska hagaagi doonaan haddii uu meeshan qof hal abuur la yimaado oo ummaduna maaragtay ay la garab gasho oo wanaag maaragtay sheeg la yimaado dadka tusa
haddaad wax wanaagsan la timaado dadkuna weji wanaagsan bay ku tusayaan laakiin haddaad weji macbud la timaado iyo cay iyo aflagaado umadeed iyo waxyaabo kale aad la timaado cidna ku dooran mayso isku soo wada duub waxa weeye kulmiya wuxuu ka online karaa uun wixii uu qabtay iyo wixii uu qabanayo wadanna wuxuu ka online karaa waa hal shay waa wixii uu wadanka ku soo kordhinayo isagiyo cid marka oo fareen cid ku onlineaysa iyo cid ka dhigaysanaysa kulmiye qudhiisa inay caayaan ay dhahaan oo fareen wadani waa diray iyo waxaas diray garxash waa diray cidna ka dhigaysan mayso cidna ka dhigaysan mayso qaranka xisbiga wadani baa ayaa ciidan soo jebiyay cidna maaragtay ka dhigaysan mayso Cabdiraxmaan Cira meel sawir ku soo galay nin kula soo galay gaal cidna ka dhigaysan mayso Cabdiraxmaan Cira Sacuudiga kula kulmay garaadada cid ilaahay ka waxa ka cid ilaahay abuurtay oo waxa ka dhigaysanaysa oo dhimirka ahayni ma jirto wadanka waxaad qabatay 10 sano hayseene 10 sano xaade malaha 14 sano hayeen 14 sano hayseene waxa wadanka qabatay waxa weeye kuwaloleeya iska daya sheeka maaragtay badbadka adna xisbiga wadaniyow yar baan arkay xataa le xisbiga wadani waa in uu ka oleeyaa sidoo u samray baa lagu eegayaa sidoo u samray yar kulmiye taageero oo jeeganta oo iska maaragtay dadka baa aqliga weeye social media dagaalada ka abaabla xisbiga wadani sidoo samray cid waxa weeye ay sheegaan ku oleensa ma jiro xisbiga wadani xisbi mucaarad waha markuu wadanka dhacay uu iska hurdo tagay hadduu iska soo toosay odaygu ilaahay baa maaragtay ku sameeyay mar labaad bulshada soo hor istaago waxa uu la yimaado min hadana eegi doona insha Allah iyo kartidiisa laakiin waxbuu qalday ninkii waa hurdo tagay fiilam iska tagay amsa joogay wadanka saac ninka Cabdiraxmaan Ciro fiilam iska joogay meelahaas iska qabtay waxa weeye inna masaakiinta ay meelahaas maartay shaaha iyo maartay soo sawir islaamaad ku galgalayay ma garanayo wallahi wuxuu bedeli karaa hadduu wax bedeli karaayo oo awood leeyahay wax sameyn karaayo meelaha taageerayaashiisu kama yiraahdeen waxa weeye halkeen ku mudaharaadnaa iyo gurigeygii jigjigeer ku yaalay boor ayaa waxa weeye laga bedelay rinjigii oo rinji kala la mariyay iyo cadaalad baan rabnaayo waxba uu jabin karayaayo qaranku wax ka bedeli karayaayo muxuu waxaas maartay barnaamijyada ka soo dhigayeen taageeradiisu macnaha waa waxaan macquul ahayn xisbiga wadani waxa weeye waa sida inagoo kale inagu haddaynu boqorno awood baynu siinaynaa laakiin hadda manayna boqoran manayna dooran waan rajaynayaa saaxiib yar bartoorka inaan tijaabino odayga yar kuran waxaan rajaynayaa asagana bal inuu ilaahay maartay oo bulshada maartay wax wanaagsan oo qanciya inuu soo helo oo ilaahayna la garab galan insha Allah rajaynaynaa anaguna bal waxa weeye waa la wadaynaa baasha aad iyo aad u mahadsantiin waxa weeye hadda sheeka jilaacda waan iska bartay mobilkayga saa iska haysta si qof yar la soo gelaya waa ixtiraam daro waagi hore si caadi ah u duubi jiro laakiin hadda ilaa shalay toona maartay arka waa iska bartay maanta jimcay ahayd ana saameel iska fadhiya meesha iska fadhiya ayuunba arrinkan aan arkay ninkan habar jeclo saas uma mul doorteena hal iyo laba ka dhaahdeen bal igana raali ahaada muuqaalku way kuma raaxaysan kartaan oo si fiican ma soo duwar moolkiisa saas haya waxa weeye waa in salaamaya fikirkiina bal insha Allah waxay commentiga ugu wadaaga